بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كأني لبعض مايكروسوفت وورد فيرشن كيسنا عن كل شقين إنه حويان وأن يتم عن استعمالها إلا هذا والله صعدة 24 والهرية application 23 وفعلبل. عشر كلا بعض ما تحقق قادنا هنا formatting text فرتسي اللي بدله لحن قضاء يعني كسوق قاضي يسامبل كودا لحن قضاء يعني قضاء بقينا سامبل كاس أما سامبل كاس كقرن مد أقول رئيس حويان وفونتي فرتسي اللي بدله فونتي قرالة يا ما فرح مقعيد هذا هي فونتي ستايل فرح بدل سي اللي بدله هي فرتا كلر كذا هي فرتا سايز كذا عبركه iyo janji case ayaa ku qoran halkan janji case wuxuu yahay waan sala arkaynaa waa mid ugu muhiimsan kolka wax la qorayo iyo sida loo highlight gareeyo intaas ayaan waxaan ku dabaqaynaa sample-kan hoos ku yaala ayaan isticmaalaynaa sample-ka si aan u qoray waa qoraal caadi ah hadii waa one paragraph hadda one paragraph oo in yar aan ka jiray weeyaan halkan paragraph si aan u qoray hal mar ayaa la qori karaa waan highlight gareynayaa waa iska tirayaa si aan u wada qoro waxaan leeyahay equal markaan qoro ayaan waxaan qoraynaa round markaan qoro ayaan qaws furayaa waxaan taabanayaa shift iyo number 9 then number 1 ayaan qorayaa number 1 kaas oo taagan one paragraph inuu ii qoro then waxaan taabanayaa shift iyo 0 ayaan taabanayaa oo qawska ayaan xidhayaa qawska markaan xidho waxaan leeyahay equal markaan dhaho wuxuu soo saarayaa one paragraph oo qoraal ah paragraph kan waxa hagaya kolba numberka dhexda ku jira hadaan tuu ka dhiga laba paragraph ay ku dhigaya eega laakiin number 1 kaas ayaan ku daniyaa waxaan leeyahay enter wuxuu ii qoray hal paragraph halkan paragraph ayaa waxaan intan ayaan ku dabaqaynaa waxaan leeyahay fontiga si aan u bedelaynaa iyo fonti style-ka mid ugu horeeyaan waa fonti fartiisa loo bedelayo faraha xakan ayaa qoraalkaada laga akhriyaa hadda waxa ay dooran Times New Roman hadaan rabo inaan ka bedelo qoraalkayga ayaan highlight gareynayaa markaan saa u highlight gareeyo highlight-kana dhowr qaab ayaa loo highlight gareeyaa markaan si aan u highlight gareeyo mouse-ka in halka oo hoose isaajinayaa dan kor ayaan ugu jiidayaa dan New Roman-ka ayaan ka bedelayaa waxaan ka dhigayaa Arial-kaas ayaan ka dhigayaa hadda qoraalkeedu wuu isbedelay haddii Ctrl Z ayaan nahay waan ka noqonayaa intan video profiles intaas ayaan highlight gareynayaa dan intaas ayaan bedelayaa qoraalka nooc kale ayaan ka dhigayaa Arial ayaan ka dhigayaa hadda wuu isbedeshay kaas waa fonti faraha si loo bedelo fonti style ayana waxa weeyaan intan ayaan highlight gareynayaa powerful intaas powerful intaas dan waxaan ka dhigayaa bold waxa weeyaan Ctrl B na waa dhigi karaa dan waa intan fontiga intaas ayaa waxa la yiraahdaa fonti oo inta faraha laga hago dan B daas ayaan taabanayaa ama Ctrl Z hadaan dhaho ana halkan joogay waxaan taabanayaa Ctrl iyo B ayaan taabanayaa B before book taas dan bold ayay noqonaysaa dan kaasna waxa weeyaan waa fonti stylada weeyaan intan ku xigta to help ama intan you can click intaas aan highlight gareynayaa dan waxaan ka dhigayaa italicna waa xarafkaas kaas u jiifooyaan shortcut-kana waa Ctrl I weeyaan Ctrl C hadaan dhaho Ctrl I hadaan taabto italic ayuu noqonaysaa oo farti way jiifsanaysaa midigta ayaa u yar leexsanaysaa inta kale ku xigta videoda hadii aan highlight gareeyo waa underline hoos ayaa la xariiqayaa waa Ctrl U asagana hoos ayuu ka xariiqay kan kale ku xiga waxa weeyaan waa qoraalka markii la baabi'inayo kale line dhexda laga marinayo eega you can paste intaasan highlight gareynayaa hadii aan dhexda ka mariyo wuu tirtirayaa kale wax laga noqdo ayuu ku noqonayaa kanoo kale hoos ayuu ku jibaarayaa kana korta ayuu ku jibaarayaa curiyaashi iyo waxa loo isticmaalaa xisaabaadka oo kale weeyaan intaasna waxa weeyaan waa font style-ka inaana laga bedelo weeyaan midka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa font color oo kale fartan waxaan rabaa qoraalkeedii iyadoo seen igu qoran inaan bedelo colorkeeda tusaale ahaan video profiles intaasan highlight gareynayaa markaan highlight gareeyo waxaan rabaa midowgan inaan ka bedelo on color kale u bedelo saadaan u highlight gareeyeen mouse-ka ugu jiido intan waxa soo baxaya fonti style-ka fontiga ayaa soo baxaya farihii xagga waan ka bedeli karaa korkaasna waan isticmaali karaa laakiin waa marka ugu horeysa bay available noqonaysaa meesha hadaan ka dhaqaaqo fontigan meesha ku yaala uu baxaya tusaale ahaan hadda waa active weeyaan kor hadii aan u dhaqaaqo uu ka baxaya waka waxaan tagayaa fontiga meeshan ku qoran tahay ayaan tagayaa dan waxaan rabaa fartan qoraalkeeda oo si ani ah inaan color ka bedelo waxaan imaanayaa eedan hoosta colorka ku wadata dan waxaan ka dhigayaa buluugaasan ka dhigayaa buluug
buluug markaan ka dhigo aan ku soo noqdo buluugaas ayaan ka dhigayaa hadda buluug ayay noqotay haddii aan rabo boldigi inaan ugu daro boldigi waa kanaan soo marray biidaas maan ugu sii darayaa boldi ayay noqotay weeyaan haddii aan rabo laynkan oo dhan inaan bedelo intaan rabo inaan casaan ka dhigo intaan labaad intan ayaan highlight garaynayaa markaan saa highlight gareeyo halkan ayaan furayaa casiinkaas ayaan ka dhigayaa farta kalarkeedana saas loo bedelaa kaas waa farti kala fonti size ka hadaan rabno cabirkeed inaan bedelno hadda waxay noo qoran tahay waa 16 inaan bedelo ayaan u baahanahay oo intan sambalka inaan ka dhigo 25 halkan ayaan furayaa dan 25 xagan kuma jirto waxa ku jira 24 26 lambarka u dhaxeeya hadda rabto inaad qorto halkaas ayaa highlight garaynaysaa dan waxaad ku qoraysaa 25 dan inta ayaan leenahay hadda 25 ay farteena isku qoran tahay hadaan rabo kalarkeena ugu darana kalarkana ayaan buluuga uga dhigayaa ama green kaas aan dhigayaa kaasna waa fonti size ka weeyaan janji case ayaa inoo yimid janji case waa ka ugu muhiimsan markii warqad la qorayo ama buug la qorayo hadda qoraalkeena oo dhan baan highlight garaynaya markaan highlight garayo kaas ayaan imanayaa eeda weyn iyo eeda yar dhexdeeda ayaan furayaa then sentences hadaan leenahay xarafka hore inuu sentences u qoro kaas ayaan dooranayaa sentences aan buu u qoriyaa sentences ayuu saxayaa haddii aan rabno kan lower cases dhammaan xarfaheena inaan ka wada dhigo qoraalkeena wanka paragraphka dhammaan lower cases xarfa yar yar kaas lower cases ka ayaan dooranayaa de videodii way yaraatay weeyaan kaas muhiim ma aha haddii waxaan ka dhigayaa upper cases dhammaan wuu weynaanayaan capital ayuu ka wada dhigayaa waa kan kale ku sii xigana muxuu noqonayaa capitalized age words xaraf kastaba sentences kastaba ama jumlad kastaba xarafka ugu horeeya ayuu weyneenayaa kaasna waa ka saxda weeyaan hal mid baa hada waxa weeyaan waa toggle case maxaa la dhahaa xaraf kastaba ka ugu horeeya ayuu yareynayaa waa capitalized age words ayuu cagsi ku yahay counter ayuu ku yahay kan wuxuu noqonayaa xarafka ugu horeeya ayuu yareynayaa inta kalena wuxuu ka dhigayaa capital tusaale ahaan video ayuu yareeyay profiles video ayuu yareeyay control z ayaa noqonaya control z waa laga noqonayo weeyaan intaas highlight ka ayaa inoo haray waa tagasi highlight markii la highlight garanayo halkaas ayaan mouse ka geenayaa cursor ka ayaan geenayaa dan waan ku soo jiidayaa hadii aan rabo in muayyan inaan si kale u highlight gareeyo cursor ka ayaan hortiisa keenayaa dan waxaan taabanayaa shift markaan taabto mouse ka shift markaan taabto arrowga midigta u jeeda ayaan taabanayaa dan waan wadayaa waa right arrowga ayaan saa u jiidayaa waa kolkaan right ka u wada tusaale ahaan weentaasan ka bilaabaya waxaan rabaa inaan hoos u jiido highlightka dan arrowga ayaan isagana wadayaa hadaan rabaa inaan kor u wadan up arrowga hadaan rabaa inaan left u wadan left arrowga kaasna asagana highlight ayaa lagu saaraa maanta casharkan halkaas ayaan ku hakineynaa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh